حرديره waxa ugu filan dhibaatada nimankaas inta aan joogay xabad moosana ma aan arag hal xabo xataa soo dhuntay walaa loo arag intaas ugu filan oo fasiraysa xaaladda xardheer ku sugan tahay xagga nolosha wasiirka runtii intaan dhigi lahaa yiri khayr Allah siiyo waxaan ka rabnaa dawladda federaalka meeshii la qabtaba in si degdeg loo xasiliyo annaga wasaaradda gaashaandhig ahaan iyo ciidan ahaan waxaan rabnaa meesha aan qaban inaan hore uga sii socono marka si ay noogu suurowdo waa inaan helno xasilin meelihii nagala wareegta iyo in dadka shacabka la tuso adeeg ka duwan wixii ay hore u haysteen ka duwan in la tuso oo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo noloshiiba lagu soo celiyo ayadana muhiim bay tahay waana message-kaasna wasiirku waa jeediyay annaguna waa adkaynaynaa aad baa loogu baahan yahay dadka shacabka ah waliba xilli jilaal baa lagu jiraa in gurma degdega ay helaan cadawga xogtiisa haddaan wax yar idin siiyo shalay ugu dambaysay halkaanay ku direen ayagu meel loo jirta aan aad nooga dheerayn waxay soo gaaray warmaysa iska dileen 14 iska dileen 10 baa soo fakatay waa laga daba yimid 10kiiba waa la dilay ayaguna 4na waa dileen 12na waa dhaawaceen walow waa rag la yaqaano xataa la ii sheegay meelihii markii hore hadda shabaab bay ahaayeen meelihii markii hore ay ka yimaadeen xataa la ii sheegay magacyadooda taas waxay muujinaysaa shabaab jabka iyo niyad xumada ku dhacday niman baa noo soo galay oo noo warbixiyeen waxay yiraahdeen inta dagaalka diyaarka u ah iyo inta la qasbaaya badan shannin haday meel yar gaarayso qoryaha waa laga dhigayaa nin qori wata ama laba nin qori wata geesaha laga raacinaya halkaas waxa ka soo baxaya dadka noocaas oo imisay dagaalami karaan masa dagaalami karaanba yaa macnaha samaysmahaya waxa muuqanaysa inaysan dagaalami karin ciidamada halkan jooga iyo dadka deegaanka waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa deegaankana inaan difaaci karno mid kuwa kale dhiman aan xoreyn karno hadii Ilaahay ina sida ugu dhaqsiyaha badan culimada hadda aad tagtaan hal su'aal loo weydiiyo askartaanu maalin walba gacantan ku hayaa hadii nimankii khawaarij la yiraahdo loo fasaxay hadda gabdhahoodii waa malakad yamiinu ma yihiin absabad baa nagala joogay laba dhalinyaraha godka ku haya oo la warsuga marka ayagana in loo fasaxo waa rabi lahaynba xog bay ku haysaa markii hore laga furtay mustadiin baa ila qabay hadday ayagu hadda khawaarij noqdeen ana loo fasaxo intaasna waa intaas waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku soo dhaweynaynaa Xaradheere waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta u sheegaynaa iyo shacabka Galmudug waqtigooda inuu dhamaaday khawaarijta sida xaqiiqada waqtigooda waa dhamaaday waxay dadka u sheegi jireen waa dhamaatay diin ay ku gaban jireen oo ay shaati ka dhigan jireen ummadii waa ogaatay nin islaama rag intaan jooga salaad subax waa la wada tukaday ninka ku soo kalahayo waliba xilliga salaadu soo galay asoo salaad tukan xilliga salaada ay wax soo weerarayaan kubaan qabano war maxaa dhacay xilligan wuxuu yiri sheeqan laga dul qaaday wala bil ramadaan bay ahayd nimanka noocaas oo diintana sidaas ka ah dhinaca dhaqanka dadka say ula dhaqmayaan halkan waxyaabo aan afkayga soo qaban baa dadku noo sheegayaan maqribkii markii la gaaraa telefoon loo dir soo bax 10 baa leedin dhigayaa haweenka hal gabar oo Allahu akbar salaad ku tukata la baran waa la waayay hal gabar nimanka diintana saaska dhaqanka bini'aadamka saaska oo waxbarashadii iyo iskuulaadkii iyo noloshii ummadda cadibay way ummaddaanu wax walba oo adduunka jooga waxay leeyihiin
xilli ay bilowdaan iyo xilli ay dhammaadaan khawaarij waxaa la gaaray xilligii gabagabada ahaa oo ay dhammaadeen runtii waxay u baahan yihiin wax yaroo israacina israacinta waxaa ka mid ah inaad noo timaadeen dhiirigelintiina israacinta ka mid ah aad baan idinkugu mahadcelinayaa waxaan codsanayaa xildhibaanada federaalka iyo senatarada difaacyada ciidanka ku jiraan iyo nolosha inaad adinkuna waad nala arki doonaa waa idin geyn doonaa inaad soo kaxaysaanoo aad noo keentaan war horta ciidamadu nolosha ay ku nool yihiin iyo difaaca ay ku jiraan oo ummadda u hayaan ha nalala arko nala arka noo garaaba